kulanti wanaagsan idilkiinba saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan waa aqoonsi TV aniguna waa Mustaf Xaaji Aadan Haruun ku soo dhawaada wararkii caalamka kuwoodii ugu door corona afgabi ay sameeyeen militariga Guinea waxay xilkii kaga tureen madaxweynihii dalkaasi ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxa uu 48 saacadood oo haatan gabagabo ku dhow qabtay gudoomiyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA Fahad Yaasiin inuu warbixin lagu kalsoonaan karo kaga keeno waayitaanka Igraal Tahliil warsame oo lagu weysana magaalada Muqdisho gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee waddan Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirana waxa uu soo saaray digreeto uu ku magacaabayo guddida qabanqaabada shirweynaha xisbiga waddani oo ah xisbiga mucaaradka ugu weyn Soomaaliland waxa markii ugu horeysay iyaguna muddo dhowr sanadood kadib magaalada Muqdisho ku kulmay gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdillaahi iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Khadar oo heshiis ka gaadhay khilaafaadkii muddada soo taxnaa ee labadooda u dhaxeeyay wararka caalamkana waxaa ka mid ah doorashada dalka Jarmalka oo si weyn loogu loolamayo kursiga kansalaarka Angela Merkel kadib qaraxyo ka dhacay dalka Ciraaq iyo waliba dad lagu laayay Afghanistan warkii oo faahfaahsan Maxamed Xuseen Roble ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya ayaa xilli dambe oo xalay waqti 48 saacadood oo qabtay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA si ay warbixin laga kalsoonaan karo ula wadaagto bulshada taasi oo ku saabsan waayitaanka Igraal Tahliil Faarax oo ahayd howlwadeen ka tirsan hay'adaasi oo 26 bishii 6 sanada 2021 ku qarsoontay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya Igraan ayaa arrinkeedu yeeshay saameyn weyn kadib markii muddadaasi ka badan 70 maalmood la meel Jaaniya cidhib dhigtay waxaana marar badan warbaahinta kala duwan la hadlay ehelka Igraan oo dalbanayay helitaanka Igraan balse arrinkoodaasi culays weyn lama saarin haatan markii ay NISA soo saartay qoraalka sheegaya in Mrs Tahliil ay ku baxday gacanta xarakada Al-Shabaab waxa warbixintaasi ay dabka ku sii shiday tuhunkii laga qabay NISA ee ahaa in Igraan ay ogaatay xogo muhiim ah oo ku saabsanaa dilkii injineer Cabdiraxmaan Cusmaan Cumar Yariisow gudoomiyihii magaalada Muqdisho iyo gudoomiyihii gobolka Banaadir oo qarax dusha loo saaray Al-Shabaab ay kowdii bishii 8 sanadii 2019 xafiiskiisa magaalada Muqdisho ka fuliyeen sidoo kalena wararku waxay sheegayaan in Igraan ay wax ka ogaatay dilkii Alman Elmas oo ahayd xogayihii guud ee safaaradda Soomaalidu ay ku leedahay dalka Kenya isla markaana uu ololeysa xuquuqda ibni aadanka oo ay ka howlgali jirtay xafiiskii aabaheed ee Elman Peace Center oo ku yaala magaalada Muqdisho muddada loo qabtay Fahad Yaasiin gudoomiyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA ma ku soo gudbin doona warbixin lagu kalsoonaan karo iyadoo waayitaanka Igraanna ay sababeen masiibooyin kale iyo in dad leh hayba gudoomiyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin laga ugaarsado meelo ka mid ah gobolada Soomaaliya gaar ahaan gobolka Hiiraan magaalada madaxdiisa Beledweyne muddo dhowr sano oo uu jiray khilaafka weyn ee u dhaxeeyay gudoomiyaha aqalka sare iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Khadar Guuleed iyo Cabdi Xaashi Cabdillaahi ayaa waxay markii ugu horeysay ka soo muuqday sawir ay si wada jir ugu jiraan iyadoo uu heliyo gudoomiyaha maxkamadda sare ee dastuuriga ee dalka iyagoo oo sheegay inay ka heshiiyeen khilaafkii muddadaasi labadooda u dhaxeeyay ee ku saabsanaa kala awood bursiga matalayaasha Somaliland ee ka qayb galaya doorashada dhawaan la filayo in Somaliland inay Soomaaliya ka dhacdo iga raaleehada isla wararka Soomaalida ayeen ku jirnay gudoomiyaha magaalada Hargeysa gudoomiyaha xisbiga ugu weyn mucaaradka dalkaasi waxa uu maanta guddi farsamo oo qabanqaabsi shirweynaha xisbigaas uu yeelan doono dhawaan xisbiga wadani weeyaan ee Somaliland ay ku qabteen magaalada Hargeysa oo kaga dhawaaqay magaalada Hargeysa guddidaasina waxa ay qabanqaabinayaan shirweynaha xisbigaasi oo la doonayo in lagu doorto musharax xisbigu yeelanayo ku-xigeenka musharax haddii Allah awood leeyahay wararka dibaddana waxa kamid ah ururka lagu magacaabo ISIS ama Islamic State in Iraq and Syria ayaa waxa ay 12 qof oo booliska dalka Iraq ku dileen magaalada Baghdad ee caasimadda dalkaasi dilkaasina iyaga ayaa sheegtay Afghanistanna waxa ka dhacay israasaasay lagu dilay dad rayid ah oo ku sugan magaalada Kabul ee caasimadda dalkaasi lama garanayo sababta rasmiga ah ee keentay israasaasaynta ka dhacday goobta dadku ay ku badan yihiin in ay tahay wax iskeed isaga dhacayo in lagu la jiro ugaadhsiga dadkii iyagu la shaqeynayay isbahaysigii NATO ee hogaaminayay Mareykanka oo muddo 20 sanadood dalkaasi ka howlgalay dagaal kula jiray xogaga Taliban dhanka kale isla dalka Afghanistan ayay ku jiraan dagaalkii u dhaxeeyay xogaga Taliban iyo jabhadda badbaadada Afghanistan oo uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dawladii dhacday ee Afghanistan ee ay NATO taageeri jirtay ayaa sheegay weeyaan Afghanistan Resistance Army
inaan haba yaraatee waxba ka jirin sheegashada daalibaan ay sheeganayso in meelo ka mid a gobolkaasi ay qabsadeen. warar kale aynu haynana waxaa ka mid ah dalkan Jarmalka waxaa ka socota loolan adagoo loogu jiro bedelitaanka Angela Merkel marka ay kursiga madaxtinimada ka dhamaato. Armin Laschet oo ah isagoo u tartamaha xisbiga CDU ama isbahaysiga axsaabta CDU iyo SCU ayaa waxa uu magacaabay shalay xilli dambe guddida loogu magacaabo Security Team oo qayb ka noqonaya ololihiisa uu ugu jiro sidii kursigaasi uu u hanan lahaa Angela Merkel kadib. Security Teamna waxa ay noqonayaan golihiisa wasiirada ee soo socda kuwaasi oo ay hadda u sii magacaabay si ay goboladooda iyo deegaanada ay ka soo joogaan qayb uga noqdaan sidii ay codad badan uga keeni lahaayeen. SPD waxa weeye xisbiga kale ee ka soo horjeeda ee mucaaradada adag kaga soo horjeeda xisbiga CDU loona filayo in uu qabto Angela Merkel kadib ra'iisul wasaarenimada dalka Jarmalka. kursigan kansilarka ee dalka Jarmalka tiraba 8 jeer ayaa guud ahaan lagu tartamay waxaana markii ugu horeysay lagu tartamay 1949kii xilligaas oo Konrad Adenauer uu noqday ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay ee dalka Jarmalka uu yeesho kadib dagaalkii labaad ee adduunka markii xoogagii ciidamadii Jarmalka laga adkaaday oo hogaaminayay Adolf Hitler. 5 jeer oo ka mid ah kursigan ra'iisul wasaarenimo ee dalka Jarmalka waxa qabtay xisbiga CDU iyo SCU isbahaysigaasi ay Angela Merkel ka tartamayso. Konrad Adenauer ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay oo qayb ka mid ahaa. 3 jeer ee kalena waxa qabtay xisbiga SPD oo imika uu ka tartamayo Olaf Scholz oo ah isagu xisbiga 3 jeer hogaaminayay xilka ra'iisul wasaarenimo ee dalka Jarmalka. warkii oo ay kala socoteen aqoonsi TV anigoo Mustafa Xajaadan idin socodsiinayay intaas ayuu naga eegay kulanti dambe intaynu ku kulmayno warkan war lamida iyo barnaamijyo kale waxaan idin leeyahay sidaas iyo fi amaanillah. haddaba haddii aad nagu cusub tahay isku day inaad nagu soo biirto qaybna ka noqoto kumaanka kun ee saaxiib aan halkan degal wadaagta ku nahay.